والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta insha Allah waxaan isku daynaa inaan sameyno app-ka halkan la yiraahdo Creatlink kaasoo kaa fududeynaya inuu linkiyada WhatsApp-ka aad si dhaqso ah u sameysid. Haddii aan tusaale soo qaadano, halkaas waxaad gelinaysaa nambarka aad linkiga ka sameynaysid, marka hore 063634942. halkan ay qoraal yar raacaysa halkan qoraalku doona ha noqdo, kadibna Creatlink baad odhan. markaad Creatlink tiraahdo waad koobiyeysan kartaa oo meel qof u diri kartaa ama aad u share gareyn kartaa. haddaad open in WhatsApp tiraahidna wuu kuu furaya oo wuxuu ku dulgeynayaa qofka akoonkiisa. qofka akoonkiisa ku dulgeeyay qoraalka yaraa hello inuu soo qornayna oo arkaysin uu sii qoray, kadibna qofku send uu taabanayaa wuxuu doonaa kale u diri karayaa. marka waa link waad garanaysiin. marka app-kaas sameynaa waxaanu soo furi doonaa markaa iska joorta soo kicisana markaad soo kiciso waxaad kusoo daraysaa project cusub, kadibna magaca doonta aad ula bixi. hadoo kale waxaad bixin kartaa WhatsApp link, halka iconka kaasan soo saaraysaa, kadibna advanced-ka si hagaajinaysa xagga kala dhaantii aday ku taala package name-ka. intaa waad hagaajisan kartaa create app kadibna marka aad create tiraahdo uu kusoo saaro meesha bannaan, kadibna waxaan u baahanahay koowaad waxa weeye edit tags. sidoo kale mid labaad intaynaan hawsha qabana linear bay u baahanahay ilaa dhererkiisu noqonayo 200 aanu dhex dhigano kuwan salaskoos dhigayana orientation-ka vertical ka dhig. intaa marka aad qabato hoos dhigto edit tags-yadan aad magac u bixin ka waxa odhani kaas isagoo nambarkii, kaas kalena waxa weeye tags iska leh oo qoraalka yaraa raacay. sidoo kale waad yara waaweyneysaa 16 baad ka weyneysiin kartaa. halkan iyadana width-kana waa sii deynaysaa ilaa xaggaa tago, kana sidoo kale 16 ka dhig. width-kana sii daa sidoo kale ha dheeraadaan. haddaba ka sare si aad hintiga yar ama qoraalka yaree hoose aad u bedeshid, xaggan hintiga tag, kadibna waxaad ku qoraysaa geli nambarka. intaa markaad ku dhex qorto kan kale hintigiisa isna waxaad ku dhex qori geli qoraal, kadibna ka horna intaa raaci. waxaad doontaa hintiga ka dhigan kartaa waxa weeye hintigu qoraalka yar qofka tilmaamaya. qalfadan samaysana horta marka koowaad, marka intaa yar samayso waxaa naga dhiman button-kaasna waxaad isku dayaysaa inaad dhexda dhigto, dhexdaad dhigaysaa, kadibna maxaa ku sameynaysaa height-kii meesha weyn waraab baad odhanaysaa 200 way ka daynaysaa si ay u xidho. intaa mid kala soo qaadani linear kale isna sidoo kale 200 ka dhig. 2 button baynu dhex dhiganaa oo halkana tegi bartankaad ka dhigi. waxaad soo qaadan button kale oo hoos dhigaysaa. sidoo kale waxaad bedelaysaa orientation-ka meeshay ku jiraan vertical waad ka dhigi. kadibna maxaad isna odhanaysaa height-ka waraab si uu u xidho meesha.
oo uu iskugu soo yareeyo. Kadibna kaa waxaad ku qoraysaa bottomka masaxi create link baad ka dhigi. waa tusaale ahaan nimka aabkan sameynaa marka sidii kii aan soo kale hadaa u sameynaysiin waad ka qurux badnaysiin kartiin. marka background-kood bedeli kartaa, waxaa ka dhigi kartaa buluug, text color-kana cadaan si ay wixii kugu qurux badnaadaan. kuwan laftooda oo bedeleysaa halkan waxaa ku qoraysaa copy to clipboard. copy to clipboard kadibna background-ka waxaad ka dhigan kartaa casaan, text color-kana cadaan. halkana waa tii whatsapp-ka isna akhtar baad ka dhigi background-ka. waxaana halkan ku qoraysaa open in whatsapp. haddaba labada button hoose maxaa ku sameynaysaa welidkooga waa sii daynaysaa match parent, kana soo kale match parent. labada button ee dhaadheer ha noqdaan. kadib haddaba iminka waxaa u gelinaa koodhkii iyo wixii. qofku markuu halka create link taabto on click markuu taabto muxuu sameynayaa? waxaan u baahanahay componentskaas waa 3. mid waa intent oo intentga waa magaca doontaad u bixisani. componentga kale u baahanahay oo dialog. componentga saddexaad u baahan tahayna waxaa la dhahdaa request network. markaasna wifi waad u bixini, waad kusoo darsan, kadibna halkan aad kusoo noqon. waxaana sidoo kale u baahan nahay halkaa text aad dhigasid, textka yar oo isna aad dheereynaysid, waayo halkaa waxaan rabnaa inuu linku kasoo baxo. haddaba marka create la taabto waxaa dhacaya create marka la taabto waxaa odhanaysaa qoraalka yaraa imika kusoo darnay, textka yaraa imika ayaa maxaa laga dhigayaa, textka yar u dambeyn imika kusoo darnay ayaa waxaa laga dhigayaa 2 join ba soo qaadanaysaa oo isku xidh. halkaa waxaad dhigaysaa waa inaad qoraalkan meesha ku dhex qorayaad ku dhex qortaa +252 kaga tag. intaasa ku dayaysaa waa jointa koowaad ku dhex qoraysaa. intaa maxaa lagu xidhiidhinayaa? qofku numberku meesha geliyo waa lagu xidhiidhinayaa. oo isna saan ku helaynaa waatan text intaana taa dhex gelin horta jointa dhex dhigaysaa. kadibna markaa waa textka waa numberka iyo intaa markaa isku xidhi. kadibna join kalena usii baahanaysaa waxaad sidoo kale u baahanaysaa join saddexaad oo aad halkaa dhex dhigaysid. markaa iminka intaa numberkan ku xidhnay maxaa lagu sii xidhinayaa intaa hore naga jar numberka iyo intaa hore heroodana jar equalista iyada waad daynaysaa. intaas ayay ku dhex qoraysaa halkaana. halka u dambeysa iyadana haddaba maxaan dhiganaa iyadana waxaa weji qoraalka yar qofku uu meesha gelinayo oo waxaa weji edit textkaas aad ka dhigi. kadibna intaa oo isku duwanaya halka dhex dhigas. waa sax halkaas create-kii intaa dhex dhignay. haddaba xaggan uu linkiga soo dhigmaya. markuu qofku copy dhaha maxaa la sameynayaa? waxaad sameynaysaa
waxaa tagi componentska copy to clipboard baa odhan iyana tobastaanood raacini copy to clipboard maxaa daba lagu koobiyeynayaa clipboardka ama maxaa la copy garaynaya waxaa la copy garaynayaa waa tagaska yare linkiga halkuu kasoo muuqanayo oo ah waxaa odhanaysaa qoraalka yare inuu xagga imika dhigna linkiga ahaa kaasaad soo qaadanaysaa kadibna u copy garay clipboardka uu copy garay toobaastuna wuxuu sheegayaa in la copy gareeyay kadibna waxaa ku qoraysaa tagas copy intaasaad ku qori buttonkaasina halkaas ayuu ku dhan yahay kan u dambeeya opening whatsapp isaga intantiga ayaad adeegsanaysaa oo waxaa odhan set action view halka intantigana ay intaa marka tira dhaatadiinu dhex dhiganaa dhaatadiisuna wax kale maaha waa halkii qoraalka yaraa linkiga sameynayay ee u dambeeyey ee tagaska ahaa kadibna componentiga ku noqo waxa u dambeynaya waa start activity haddaba wifi network muxuu isaguna inoo qabanayaa waxaa odhan wuxuu inaga eegayaa qofkan whatsappka rabo inuu ka eego linkiga uu la tago inuu internet haysto in kale ayuu inaga eegayaa kadibna waxaa url-ka halka google.com ku qori waa iska tusaale un halkaa taagana eebaad ka dhigi marka waxaa odhan if is connected haddii uu yacni ku jiro haddii uu la xidhiidhsan yahay internetka oo wifi haysto ama dhaato waa sidaa oo yacni u fur oo halkaa gee haddii uuna haysan bay noqotay dialogue ayaan sameynaa dialogaas waxaan ku dhex qoraynaa inuu qofku waxaad ka odhanaysaa internet ma haysatid fadlan internet isticmaal halkaa waxaa ku dhex qori no connection baa ku dhex qori marka messageka u dirasaana xawaaji fadlan isticmaal wifi xagga okay buttonkana okay unbaad ku dhex qori oo buttonka magaciisa dialogue waa inaad u dambaysiisaa intaa markaa samaysiisna saas ayuu ku dhan yahay kadibna waan eeganaa bal aapka si uu shaqeeyo wuu yara suganaa wakaa imika installna yidhi soo install garayso kadibna open dheh haddaba markaan aapkii aan soo sameynay waxaa xaggaad gelinaya numberkii baad gelinaysaa 063 oo kale 6349 numberka marka gelisid qoraalkiina helo waad ka dhigi marka haddaba create link tiraahdo waa kaa linkiga halkaa dhigo ad arkaysaa qoraalka yar madow ayaa linkiga marka copy to clipboard tirahdana tagas copyed oo lagu copy ayuu leeyahay haddaba opening whatsapp baynu odhanaa wuu diiday maxaa yeelay no connection dhaatuu u baahan yahay waana dhaatada markaa furtaa markaan dhaatada furto haddaan opening whatsapp idhaahdo toos buu akoonkayga iyo geynaya okaa qofkii numberkii linkiga aynu ka sameynay ayuu dulgeeyey qoraalkii yara helowdii inoo dhigay maanta waa intaa cashirkeenu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu